Suldaan Maxamed Muuse Cune oo ka mid ah salaadiinta gobolka Togdheer ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Burco waxa uu kaga hadlay xaaladda guud ahaan uu dalku marayo iyo waliba ismaandhaafka siyaasadeed ka aloosan xisbiga muxaafadka ee kulmiye kadib markii maalmihii ugu dambeeyay wasiiradii ugu miisaanka cusla ay iska casileen xukuumadda Soomaaliland asagoo suldaanku arrimahaas iyo arrimo kale tiro badan ka hadlay waxa hadaladiisii ka mid ahaa galay waa ogtihiin xaaladda imika in ku jiro waa xaalad aad u adag qalaasa siyaasadeed oo halis ah galay waxa ogtihiin dawladdii dhammayd ee imika waddanka joogtay ee isku haleelinay difaaceena iyo amnaankeena qaabilsanayd dadku ay wax ka sugayeen rajada ka sugayeen mar kaliya inay sacsiishay meesha ay ka tageen nimankii wasiirada ahaa ee uu ka mid ahaa wasiirka madaxtooyadu ninkii caqli laba oogayaan maanta waxba ku dambayn waxaan idin sheegayaa dalka waxa ka dhacay inqilaab ka dhacay waxaana inqilaabay Musabixi iyo Maxamed Kaahin ayaa inqilaab baana dhacay waxa weeyaan dal waxaan u guuray oo lahayd dimuqraadiyad banwadina in uu guuray iyo in la istortay iyo dalka in deemartay sharciga kala hago dalkii waxa lagu celiyay 19 kibir ka cabanayna markii hore waxa lagu celiyay xilligii 48 baa lagu celiyay xilligii عرعست وسميني إنا بيحي وإسلام كلا صاري مركا وحويان مكا وقتين وسير هذا إني مكا عصبي هذا لو يلي سميه لما أنت قعدت سوق صحولي اسمي لحدي سي عدالة كم شرتوه وحلا بهين مكا وقد نبى حكومهم هذا صماردو مدبا نبى ورا بهين يهو يدا مدهم بعد مكا وقد تضعوني ما هلا يدلعن يدلعن مكا وقد تضعوني ما نقدر سطح أحمد سيلاي وكعبنا ماشي وحيمي ما أنت وحلي وح ترتمي أو يمي وحس بيقول لك هنا يا عتسي حوق لو كهنا يا عدالة هين مصبيحي أركور مدحونا وحنا كرات لين لها هدول دول يحس بجازمانتين وبالبلد ده حس بيجي سيد حديث عدالة كسمايو مدحونا هدول حس بجدولين وبالبلد أنا أسوي حيس شرحه صارت كتر لها أمانة يعني ما كيس كعسلين مركو قاعدين عدالة درشة يو ظلميجا يعسكر nimanka maanta ummadda u digay ee ka tagay ayaan maanta aad iyo aad u hambalyeynaya dhammaantoodba siiba wasiirka madaxtooyada oo waxa maskab wanaagsan ku haystay oo qabtay intii xukuumadda Soomaaliya jirtay xirsi baa lagu u haynaa ummaduna u aqoonsan tahay marka waxaan ku talinayaa oo dalka la badbaadiyo haddii la badbaadin waayo hadalkayga la aqbali waayo oo Musabixi iyo askartan bal hore ilaahay inaga furfuray ay nagu soo celisaan أول حركة عبادة إن دول يبيه حامل قصة ورد كنول بيبين دون هذه لها كدوا وذوقان دون تند كنول بيبين دون عدي سكستباها إلا هذا لما صورين كرا لما نأجوا هل كوصل ديجان دونا اسمان داف كان سياسة ذاك ده حلوسن حسب محافظ كايا كل مية بل سوى حل سجابة وحل كاي قارن قد ده مدحونا السومالي لانو مقعبي إن أي حليا خلاف كده حلوسن حسب قاسي وبروا قادن محمد شبكة عالمي جود وين نيوز مقالة برعو.